الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. walaalayaal maanta waxaan isdul taagaynaa biidni illaahi tacaalaa 5 arrin oo nabiga calayhi الsalaatu wassalaam uu ugu dardaarmay ummaddiisa. ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa wuxuu leeyahay nebiga ayaan maqlay asagoo nin kale wacdinayo o waaninayo, wuxuu ku yidhi waxaad ka faa'iidaysataa 5 arrimood intaysan 5 cawaaqib kugu imaanin. 5 ka faa'iidayso 5 horteed. shabaabaka qabla haramik, dhalinyarinimadaada ka faa'iidayso oo ka haniimayso intaysan duqnimo kugu imaanin ka hore. nebiga wuxuu ku tilmaamay اغtinaam min الغanaa'im aw min الاغtinaam wa huwa أkhdu الغaniimati wاlcaطiyة. walaalayaal haniimada waxaa la yidhaahdaa markii gaalada la jabiyo oo xoolahooda la boobayo oo muslimiinta ay qaadanayaan xoolahooda ayaa haniimo la yidhaahdaa. 5tan arrin ama 5tan marxalo oo ku soo mari doontane ka faa'iidaysiga aad ka faa'iidaysan doontaa haniimo ayay u dhigmaanayaysan ku seegin weeye. wuxuu u hormariyey nebiga calayhi الsalaatu wasalaam: shabaabaka qabla haramik, dhalinyaranimadaada ka faa'iidayso intaysan gabow iyo duqnimo aysan kugu imaanin. waxaad uga faa'iidaysanaysaa zamankaasi waa zamanka aad ugu awooda badan tahay dhalinyaranimadaada. cibaadada alle inaad uga faa'iidaysataa lagaaga baahan yahay, iyo acmaasha khayriga oo dhan inta aysan daciiftinimo kugu imaanin. maxaa yeelay walaalayaal, dhalinyaradu ama dhalinyaranimadu ma baaqi ahaato mana daa'imto. qof walba oo dhalinyaro ana waxaa cirbinaya gabow iyo duqnimo ayaa cirbinayso. marxaladanne oo shabaabnimada ah waa marxaladda dadka ay aada u ihmaaliyaan oo aysan ka faa'iidaysanin. khaasatan zamankan aan ku noolnahay waa zaman dhalinyaradiisii ay aad ugu kadsoomeen adduunyada oo shaydaan uu duufsaday in badan oo ka mid ah. waxaad arkaysaa ninka markuu dhalinyaro yahay inuusan waxba isku mashquulinaynin cibaadadii alle, soon iyo salaad iyo wax walbaba inuusan isku mashquulinaynin, oo uu leeyahay markaan gabooba ayaan masaajidka gelayaa oo aan si fiican u cibaadaysanayaa. markaan maaragtay inaad gaboobaysane ma ogid, inaad gaarayso intaa cumri ilaahay ku siinaya ma ogid. marka walaalayaal wax loo baahan yahay shabaabnimada in laga faa'iidaysto. weliba marxaladani shabaabnimada ah waa la isweydiinayaa maalinka qiyaamada ah. nebiga ayaana noo sheegay kamaa fi اlxadiisi صaxiix: laa tazaalu aw laa tazuulu qadama cabdi yowma alqiyaamati xataa yus'ala can 4 wadakara minha can shabaabihi fima ablaah. nebiga wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam qofka maalinka qiyaamada inuusan ka zuulaynin ilaa la weydiiyo 4 shay, ilaa la weydiiyo. 4taa shayna waxaa ka mid ahaa shabaabnimadiisii iyo wixii uu ku baabi'iyey oo ku qabsaday ayaa la weydiinayaa. marxaladaasi marka waa marxalad aad iyo aad u qiimo badan. cagsigeeda hadday imaado duqnimo iyo waayeelnimo hadday imaado, qofku wuu duqoobayaa, wuuna daciifayaa, awooddii uu lahaana way yaraanaysaa. waxyaabihii uu qabsan jiray waagu uu yaraana inuu qabsan waayo bay u badan tahay. acmaasha awoodda u baahan waxaa ka mid a camalka xajka la yidhaahdo.
xajka qofka markuu dhalinyaro yahay aad buu ugu raaxaysanayaa dhibaatadaasi iyo dhibka uu nebigaba tilmaamay oo uu ku tilmaamay jihaadun laa qitaala fiihi uu ku tilmaamay qofka dhalinyarada ah dhib weyn kalama kulmayo laakiin qofku markuu gaboobo aad buu ugu rafaadayaa uguna dhibaatoonayaa walaalayaal xaramku waxyaabo fara badanood samayn jirtay buu kaa nusqaaminayaa haddaad salaada masaajidka waqti hore imaan jirtay ma imaan kartid intaad jeejeesanayso oo jijimacsanaysaa waqti kaa lumaya haddaad istaag ku tukan jirtay kursi ii raadiya baad leedahay kursi baad ku kuudadsanaysaa allana subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay markii hore inuu dacfi naga abuuray kadibna uu marxalad awood aan leenahay uuna geeyey kadibna uu noo celin doona dacfigii uu naga abuuray allahu aladii khalaqakum min dacfin ثuma jacala min bacdi ضacfi quwaة ثuma jacala min bacdi quwaةi ضacfa washayba caruurnimadaada daciif baa tahay waxna ma qabsan kartid hooyo inay gacanta kugu hayso ku koolkooliso ku koriso baad u baahan tahay sidoo kale markaad duqowdana dacfi iyo duqnimo ayaad la imaanaysaa ayadana wax badanood qabsan jirtay markaad shabaabka ahayd ma qabsan kartid marka waa inaynu ka faa'iidaysanno dhallinyaronimadeenna inta aysan noo imaanin duqnimada dardaaranka labaad oo ninkaasi uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye wasixataka qabla saqamik caafimaadkaada ka faa'iidayso intaadan xanuunsanin ka hore waxaad oga faa'iidaysataa alacmaal asaalixa acmaasha wanaagsan intaad caafimaadka qabto inaad ka faa'iidaysataa ayaa loo baahan yahay qabla an yaxuula baynaka wa baynaha saqam inta uusan idinkala teedin adiga iyo acmaashii wanaagsanayd saqam iyo jiro intaysan idinkala teedin waa inaad ka faa'iidaysataa wakhtiyadaada caafimaadkane waa inaad daaco ku mashquushaa walaalayaal sidoo kale nebiga wuxuu leeyahay waginaaka qabla faqrik hodantinimadaada iyo taajirnimadaada ka faa'iidayso inta uusan faqri kugu imaanin ka hore cibaadaadka ayaad oga faa'iidaysanaysaa maaliga ah iyo khayraadka faraha badan ee uu noo jideeyey rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxaad sadaqaysanaysaa maalka ilaahay ku siiyey waxaad ku xajinaysaa maalka ilaahay ku siiyey waxaad ka sakaynaysaa maalka ilaahay ku siiyey waxaad ku guursanaysaa iyo ku dhowrsanaysaa maalka ilaahay ku siiyey waxaad ummadda ugu gargaaraysaa maalka ilaahay ku siiyey waginaaka qabla faqrik maxaa yeelay walaalayaal maalkaani waagaad dhalanaysay ma aadan haysanin ilaahay baa ku siiyey ilaahay baana kaa qaadi kara berri waxa aad awoodda leedahood ku tasarufi karta waa inaad inta aad haysato weeye laakiin ma berri buu kaa zuuli doonaa ma maalmaad haysan doontaa ma sanadka dambuu kula gaari doonaa ma garanaysid haddii ilaa yowmka aad ka dhimanaysa uu kula gaaro xataa maalinka aad dhimatay maal aad sadaqaysata ma lahan wax gacantaada ku jirana ma lahan camalkaadina waa la laabayaa inta waxaasoo dhan aysan kugu dhicin inaad hodantinimadaada ka faa'iidaysato ood ku baabi'iso maalkaada aad ku baabi'iso duruqda ilaahay noo jideeyey baa loo baahan yahay walaalayaal rag fara badan oo tujaara oo taajirnimadooda janno ku galay way jiraan kuwo badan oo faqri ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay oga khayr badnaa in faqri lagu rido oo maalkoodii cadaab ku galayna way jiraan marka maalkaada imaa inaad ka faa'iidaysato oo aad ku baabi'iso duruqda ilaahay subxaanahu wa tacaala raalliga ka yahay wa imaa inaad naar ku mutaysato labadaa mid buu noqonaya weliba walaalayaal qofka markuu dhallinyaranimo iyo hanti isla helo waxay u badan tahay inuu ma aragtay ka gaabiyo xaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaa qofki ilaahay waafajiye khayr mooye ruuxa kale waa loo cabsi qabaa qofkii aan ka faa'iidaysanin wakhtiga ghinada hadhow nadaamo iyo shallayto waxba uma tarayso qodobka afaraad oo nebiga uu noo dardaarmay calayhi الsalaatu wasalaam wa firaaqaka qabla shuglik firaaqaada iyo nafaaska aad haysato wakhtiyada firaaqa ah oo faraha badan oo hadda aad heli karta ka faa'iidayso
inta aadan mashquulin ka hore maxaa yeelay qofka insaanka ah wuu mashquulayaa waxaa mashquulinayo shawaaqil fara badan hadduu guursado waa mashquulay oo mas-uuliyad baa dusha ka fuushay awlaad hadduu dhalana waa mashquulay oo maaragtay mas-uuliyad ka sii weyn ayaa dusha ka fuushay talabu risqi hadduu aado oo uu maaragtay inuu shaqeeyo oo marba meel ka dhaco uu bilaabana waa ka sii daran tahay wuuna sii mashquulayaa walaalayaal waxaa loo baahan yahay marka qofka intuu mashquulkaasi uusan gelin inuu acmaal fara badan oo jannada lagu galo inuu sii faa'iidaystaa loo baahan yahay awqaatulfiraaqna inuu ka buuxiyo camal aakhira uu camal samaynayo inuu ka buuxiyaa loo baahan yahay walaalayaal فمن لم يغنم أوقاته بالطاعة ninkaan oga qaniimaysanin oon oga faa'iidaysanin awqaaddiisa firaaqada taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan oga faa'iidaysanin firaaqaasi wuu ka tegayaa awqaaddiisina waxay ku dhammaanaysaa bilkhusraani waalxirmaan waalciyaadu billaah nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi nicmataani maqbuunun fiihima kahiiru min annaas alsixatu waalfiraaq dadka intooda badan way ku kadsoon yihiin kamana faa'iidaystaan laba nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyo labadaasi nicmo waa asixa waa caafimaadka iyo firaaqaada awqaadda aad firaaqa tahay kama faa'iidaystaan dadka intooda badan buu leeyay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maxaa yeelay qofku hadday u kulmaan caafimaad jirkiisa uu caafimaad qabo iyo firaaq waqtigiisa firaaqo badan uu haysto iyo amwaal hadday u kulmaan waxay u badan tahay inuusan dhinaca wanaagga ugu tasarufin oo uusan ugu camal falin oo u leexda dhinaca macsiyada dhinaca dembiyada ayaa laga yaabaa ilaa man wafaqahu allahu tabaaraka wa tacaala walaalayaal dardaaranka shanaad ee ugu muhiimsan ee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskaasi uu noogu sheegay waxaa weeye wa xayaataka qabla mowtik noloshaada inta ay nafu kugu jirta ka faa'iidayso oo ka haniimayso inta aadan dhimanin ka hore اغtanim alacmaal الصaalixa fi اlxayaaة qabla an yaxuula baynaka wa baynaha اlmowt ka faa'iidayso noloshaada intuusan noloshii iyo acmaashii wanaagsanaydood samayn lahayd dhexdiina uusan mowd gelin oo camalkaadii la goynin walaal ka faa'iidaysa buu leeyahay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam mowdku wuxuu noo sheegay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu acmaasha ibnu aadamka goynayo idaa maata bnu aadama inqaطaca camaluh qofka ibni aadamka haddii uu maaragtay mowd ku yimaada camalkii uu samaysan jiray wuu maaragtay go-ayaa ilaa min alaaثin saddexun buu nabiga ka soo reebay calayhi الsalaatu wasalaam saddexdaasi haddaad kusii ta'amusho sadaqa jaariya waladun saalix iyo cilmun yuntafacu bih saddexdaas ayuu nabiga ka soo reebay calayhi الsalaatu wasalaam saddexdaasna markaad ku ta'amusho ood ku dul fakarto waxaad ogaanaysaa ruuxa sii horumarsan kara sadaqa jaariya waa ruuxa taajirnimadiisii ka faa'iidaysta weeye ruuxa camal lagu intifaaco ka tagana waa ruuxa waqtigiisa ka faa'iidaysto oo uu qaadiisi camal cilmi inta ku bartay cilmiga asaga ahaa ummadda sii gaarsiiyey ruuxba ruuxuu ka sii dhaxlayo marka waqtigii ha laga faa'iidaysto uu nebiga lahaa buu soo hoosgelayaa walad saalaxa oo aad maaragtay tarbiyadiisii waqti ku bixiso oo aad maalkaadii ku bixiso oo aad wax ku bartana waxaad ku heli kartaa shantaa faa'iido oo nebiga uu inoo sheegay ama shantaa marxalo inaynu ka faa'iidaysanna ayaan ku heli karnaa marka intuusan camalka naga go-in walaalayaal inaan ka faa'iidaysanna ayaa loo baahan yahay culummada nin ka mid ah oo manshuuraadkiisa safaxaadka social mediaha uu ku nashriyo ku soo qoray maalin dhoweyd faa'iido aada u weyn ayuu ku soo qoray aadna aan ola tacajubay faa'iidadaasi waxay ahayd wuxuu yidhi akbar nicmada ugu weyn ee qofka muslimka uu haysta waa noloshiisuu yidhi
nolosha aad nooshahay sanka aad neefta ka qaadanayso ka soo celinayso waa nicmo aad iyo aad u weyn wax walba oo camal walba oo janno lagu gala ayaadna ku samaysan kartaa waa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku waafajiyo dadaalkeedana aad la imaado walaalayaal qofka noloshiisa waxaa loo baahan yahay inuu uga faa'iidaysto wax uu maalinka qiyaamada alla agtiisa kula kulmayo wax uu haleelayo oo ka horeeyo oo uga horeeyo maaragtay aakhiro uga horeeyo inuu uga faa'iidaysto noloshiisa ayaa loo baahan yahay cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu saxaabigii jaliilka ahaa ayaa wuxuu leeyahay idaa amsayta falaa tantadir الصabaax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك wuxuu leeyahay haddaad galabaysato inaad subaxaysatood subax gaarta ha sugin haddaad subaxaysatana inaad galab gaaraysa ha sugin maxaa yeelay ajasha gooray kugu imaanaysa ma taqaanid subaxan aad ma aragtay ididiilada dheer ood haysato ilaa berri inaad gaaraysa inaad gaaraynin bay u badan tahay adiga marka waxa aad haysatood hubto waa waqtiga hadda aad taagan tahay saacad walba saacadaas aad taagan tahay unbaad ku kalsoon tahay ood nooshahay oo naftii kugu jirtaa ee waxba ha sugin waqti kaloon weli la gaarine waqtigaasi wixii aad ka faa'iidaysan karta ka faa'iidayso acmaashii wanaagsanayd qaban lahayd qabo baadiruu bilacmaali saalixa u degdega acmaasha wanaagsan buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal shantaa arrimeed ee nebiga uu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam lama garto faa'iidadooda iyo awooddooda lama ogaado ilaa bacda zawaaliha marka ay kaa zuulaan unbaad ogaanaysaa maalku markuu kaa tago oo faqri uu ku soo haleelo unbaad ogaanaysaa faa'iidadii uu maalka lahaa firaaqada markay ku dhaafto ood mashquusho oo jameecadii aad soo haleeli weyso markaas ayaad ogaanaysaa firaaqadii aad haysatay macaankeedii iyo wanaaggeedii noloshuna waa la mid shabaabnimadana waa la mid xaafid alxakami raximah اllahu raxmata waasica ayaa wuxuu leeyahay yacni ana hadihi اlkhams أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الزاد wuxuu leeyahay shantaasi shay ayaa maalmihii shabaabnimada maalmahaad caafimaadka qabto taajirnimadaada firaaqa aad haysato nolosha kugu jirto waa أيaamu الcamal buu leeyahay waa maalmihii camalka aakhira la samaysan lahaa loona diyaar garoobi lahaa lana badsan lahaa zaadka iyo saxayda la badsan lahaa wayuu leeyahay ilaahayna wuxuu noo sheegay zaadka kan ugu khayrka badan waa attaqwa waa alla ka cabsiga weeye walaalayaal haddii marka maalmahaasi camalka loogu talagalay aad waxba haleeli weyso markii ay yimaadaan wixii didkooda ahaa ama wixii muqaabilkooda ahaa ama ka soo horjeeda ama cagsigooda ahaa hadday yimaadaan nadam iyo shallayto waxba kuma tarayso faman faatahu اlcamalu fiiha lam yudrikhu cinda majii'i addaadiha buu leeyahay xaafid اlxakami raximah اllahu raxmata waasica ibnu caiy mufasirkii weynaa raximah اllahu raxmata waasica asagana wuxuu leeyahay cinda qowlihi tacaalى wayusaaricuuna fi اlkhayraat wmima yudkhilu fi ضimni qowlihi tacaalى wayusaaricuuna fi اlkhayraat an yakuna اlmarءu mugtanima lilkhams kama qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam اغtanim khamsa qabla khamsin ibnu caiya wuxuu leeyahay markuu fasirayey aayadda qur-aanka ee ahayd wayusaaricuuna fi اlkhayraat dadka mu'miniinta laga soo sheekeeyey waxay u degdegayaan khayraadka wuxuu ku yidhi waxaa soo gelaya hadalkaasi ilaahay uu wayusaaricuuna fi اlkhayraat leeyahay an yakuuna almar'u muqtanima lilkhams shantii uu nebiga sheegay inuu qofku ka faa'iidaysto oo ka haniimaysto ayaa soo gelayso ayuu leeyahay marka si aad haddaad rabta inaad u degdegta khayraadka shantaasi shay ka faa'iidaysa siduu nebiga sheegay calayhi الsalaatu wasalaam
وفي تفسير البغوي عن ابن زيد رضي الله عنه أو رحمه الله رحمة واسعة آية ولا تنس نصيبك من الدنيا مركو فسر يوحليهي أي لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة. الله أكبر. ابن أبي زيد حليه ولا تنسى نصيبك من الدنيا وحلق لجي إذا قفك إنو ما أركتي كتغن إنو عمل الدنيا دي سعمل سمي آخرة دي سنة عمل سمي يعني أن تعمل في الدنيا الدون كان إنا عمل وناكسن أعمال صالحة إنا لا إما أضو آخرة هذا دنت هذا أي تاي آخرة هذا وآخرة أشقي سنة إلى أتكبد باديس عذاب أتكبد باديس محايا لي نصيبك وكل يهي قفك انتو الدنيا جوجا الدنيا نصيبك كل هذا وإن عامل إن آخرة وعمل فشوي يلي ها وحكى لب اللجومة كينبا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مرك أكبر نصيب الدنيا أن كل إنها ولا ليال وإن آخرة وعمل سمينه أي آخرة أن عمل فلنه. وقال السدي رحمه الله يكون ذلك يعني قولك إله سبحانه وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا سدي محكيري يكون ذلك بالصدقة وصلة الرحم. نصيبك الدنيا كل هذا هيبة وإن تصدق لبحظه قرابة ذا يرحم كذا أد حريري سواب إنت أسبول لي نصيبك أقويرة كل هذا. وقال علي رضي الله عنه ولا تنسى نصيبك من الدنيا أي لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الأجر أو أن تطلب بها الآخرة. نصيبك أد كل هذا هاي أو هاي كفا إذا يسلقوا لي هاي الدنيا ذا وعافمات كذا يا أود هذا يا الشباب لماذا هذا يا مارك تاجر لماذا هذا إن تكد البطوط كرة هذه سو آخرة إن تكرة ستو عود آخرة كجدته أي اللو بهاي مركا نصيب كدن أما نصيب كحقيقي الدنيا ذا أن كل نهاي ولا ليال وحاوي إن الآخرة أو عمل فلنه أو عمل وناكسن أن كلا تجنميشان أي اللو بهاي صحابي وينا حاتم رضي الله عنه أي لويديي عمل كان أد عمل فليس محات كبينيسا أو كل استابالي مركاسو يري أفر شيء بان كل إسا أحدهما متك أوه الرأي وحاوى يري وحان أغاذي إنو إلهي سبحانه وتعالى إيجان قوي رزقي أنيغا إيقونئة أو أحد أنيغا غير كيغا أنا ألا سينين أو أسنبوبي كرين سيدا أنيغا بأحد كال رزقي جيسا آلن أبوبي كرين فوثقت به بولي مركا كالسوني تامهان مركا هلي وقتنا إيغا مقاتا إنان إرساقات راذيو وأنكو كالسونا هاي إلهي سبحانه وتعالى رزقي وإيقري إنان هليو أيان كو كالسونا هاي بو يري مركا كوبات مركا اللبات وحان أوغا هاي بو يري إنو إلهي سبحانه وتعالى واجبات دوشا إيغا ساري واجبات إيا فروض لإيغا باهاي هاي إنان سميو إني جيران أحد أنيغا أن أهينو أقوميو أو إيغا ما أركت أن أوغا كافتهم ميانا إنو سنجرين بان أوغا ذي فأنا مشغول به بوير بركة ما دام عد إيغا قبانا يسابا أي سنجرين واجب كان أنيغا دوشا لإيغا ساري أساقي بانكم مشغولي وحكا لنا إسكما مشغولي ولي هاي حاتم رضي الله عنه واجبات كألا إساري بانكم مشغول صنعي قضب كسدحات وحاوي يروحان أغاذي إنان لا يهي ربي قاسو وقت والبقي أركيو فأستحيي منه مركاسان كحشوضي ربي قايو إيجيد إنان معسية سميو ربي قايو إيجيد إنان كعاصيو ربي قايو إيجيد إنان كقابيو واجباتك أو إساري وان كحشوضي بوليه قضب كأفرات oo xaatim radiyallahu anhu amalkayga waa ku dhisay uu leeyahay waxa weeye waxaan ogaaday buu leeyahay ajal iyo waqti go'an inaan leeyahay waqtigaas ama ajashaasna inay i ceyrsanayso
aniguna waxaan go'aansaday buu yidhi inta aysan isoo gaarin inaan ka hormaro oo aan acmaal wanaagsan waqtigayga uga sii faa'iidaysto oo wixii markii manida iyo maaragtay mowdka markuu igu yimaado wixii aan ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortagi lahaa inaan ka gaarsiiyo ayaan go'aansaday buu leeyahay radia allahu canhu wa ardaah walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa xadiis laga warinayo cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu leeyahay cali irtaxalat اddunyaa mudbiratan adduunyadii way dhaqaaqdayoo way guurtay ayadoo dubur jeedisay wartaxalat اlaakhiraةu muqbilatan aakhiradiina wayna soo qaabishay way soo guuraysaa ayagoona soo qaabilayso oo aan ishaleelayno walikulli waaxidi minhumaa banuun aw banuun mid walba oo adduun iyo aakhiro ka midana wuxuu leeyahay ciyaal buu leeyahay dad buu leeyahay fakunuu min abnaa'i alaakhira war waxaad noqotaan buu leeyahay abnaadii iyo caruurtii aakhiro noqda walaa takunuu min abnaa'i اddunya kuwa adduunyada caruur u noqdana ha noqonina faina alyawma camalun maanta waa camal samayn walaa xisaab xisaabna ma jirto wagadan xisaabun walaa camal barrina waa xisaabtan iyo isla xisaabtan walaa camalun camal fal wixii aad ka gaabisay aad ku kabaysana ma jirto ayuu leeyahay walaalayaal adduunkan aynu joogno haddaan israacino waa baaba'aynaa adduunkan aan joogno waa adduun dhammaanayo ilaahay subxaanahu wa tacaalana in badan kitaabkiisa uu ku caddeeyey ruux walba oo naga mida in maalin laga siibayo nebigana wuxuu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam man maata faqad qaamat qiyaamatuh aw kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam ruuxii dhinto qiyaamadiisii way qumtay buu leeyahay oo markaasi ayuuba qiyaamo taagan yahay lagula sugi maayo maaragtay noloshu markay soo dhammaato oo adduunku lasoo laalaabo oo macsharka la isugu yimaado oo ummaddii o dhan qubuuraha laga soo saarayo xilligaa adigu waxba kuuguma yaallaan nafta maalinka lagaa qaada maalinkaasay qiyaamo kuu bilaabatay maalinkaasaad adduunyadan ka guurtay maalinkaas ayaa camalkaadi xirmay walaalayaal marka intaan nool nahay aynu ka faa'iidaysanno intaan dhallinyarada nahay xooggeenna aan ka faa'iidaysanno intaan xoolaha haysanno xoolaheenna aan uga faa'iidaysanno camal saalixa dardaarankaas nabigana calayhi الsalaatu wasalaam qof walba oo muslima inuu sidiisa u maaragtay dhaqan geliyo ayaa looga baahan yahay وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته